أنت ليبيا سود وبعد walaalo waa dhawaa Khaalidow walaal waxa ku wada mataqaanaa xog ka tirsan Cabdalla Soomaali walaal waxa xeradan imka xalay toole oo kula hadlaysay dhan xero ka horeysay baan anaga askar baan noo soo daadato naga soo badbaadisay hal sano walaal ku jiray halkaasna ninkaas wuxuu sameeyay wuxuu dilay wiil yar oo reejigjiga ah oo intuu soo qaraacay kalida ka dalooliyay wiilkii yaraa uu dhintay aniga dhabtayda ku dhintay waliba saan u haynay habeenkoodii habeenimo wiilka ay reerkoodii hadana intuu qaraacay buu $2,000 hadana dib uga soo dirsado ku dhahay wiilkiini keena lacagtii wiilkii iyo lacagtii labadiiba wuu israacsaday muxuu ku dhuftay wiilka kaliya uga dalooliyay qaabku u dilay nolosha haa walaal maalin walaal kasta waxa jiri jirtay in la yiraahdo wiilasha Soomaalida dhagaha qabta every time aan warisay maalin subaxii markuu waagu bariyo dhagaha qabaa la oran jiray wiilasha Soomaalida meesha way ku silixsanay way ku baabaasanay subax walba 6 subaxnimo si dhagaha u qabtaan 12 duhurnimo wax yar baa la nasiyaa makaroona yar oo biyo cad lagu soo kariyay baa la siiyaa wiilashii mid wal oo kastaba mid kali ka dalooshanto mid dhiig garanaysa dhabarka dheecaamo mid uu jajabiyo wiilasha dhan say u garaacayo wala naftu ka bixi jirtay ma fahanti horta wiilkaas ugu darnaa Eritreankana wala nagu diri jiray Suudaaniisku wayna dili jireen maalin horta aniga kula hadlayo walaal ilkuhu igu dhuftay labada ilkood bay dhaqaaqay nin Suudaaniis igu diray ilkuhu dhaqaajiyay madaxa nabaru iga gaarsiiyay alxamdulillah hadda horta waan ka caafimaad qabaa ninkaas walaal dhibaato badan buu umada u geystay ilaahay waan ka dacweynayay umadiisa ilaahay naga qabto walaal اوكي دلار وبح صوتور اي كذا ويلكا مقعيسه متقانا مقعيسه سؤال سان بربينا ويدي احمد baa la dhihi jiray walaal wiilkaas Axmed Reejig Juguha احمد oo tada kale xataa gabdho Soomaaliya lagu kufsaday baan garanay laakiin walaal inaan hadaan sheego waxaan ka baqay inay iga xumaadaan ay dhahaan maxaad noo sheegtay magacooda ha sheegin laakiin sheekada uu sheeg bas sheekada sheeg walaal wuxuu dirsan jiray gab anu markii dambe horta hal sana meesha ku jiro walaal cid baa lacag iga bixin weydin faantay saan meesha ugu jiro waxay ugu dhahaan si ii dilayeen ay ii garaacayeen bay ugu dhahaan cunada noo kari saan cunada ugu karinaay wax asiida la dhahay ugu dhihi jireen noo kari waa u karin jiray de adoon caadi iga dhigteen maalin ifritaan aan waris cuno noo kari dabka ha ka bixin markaan dabka ka baxaan gudaha galana dhangab bay la dhici jireen ma fahantay maalinkii dambe waxa dhacday inan baa timaaday oo xagaya jijiga ka timaaday habeennimadii ayuu u wacay wuxuu ku dhahaynaa ii imow kaalay way diiday uu qaraacay walaal suu u qaraacay inantii maaragtay horta baralaati buu kaga dhigay dhangad jeedal la dhahay jirtay jeedalka fardaha la dhaco jeedalkaas qofkii ugu horeey lagu furfuraana anigu waxa la dhaco inantii ka bacdi markay habeennimadii uu soo jiido xukur soo bax way soo baxday aqalka xaqiisa dambe laan banaanka fasax waan cunada qasab ku kari baa laygu dhahay aqalka xaqiisa dambe la tageen nin alam la dhaho Eritrean aha iyo nin la yiraahdo mataqaanaa Saleebaan mid kale yaarey la dhaho mid kale Maxamuud la dhaho mid Yaasir la dhaho Suudaaniisa intaas ay inantii isku tagto qori bay wateen waliba waxa oo la jiray xeradeena laba qori oo midna madow yahay midna uu ahaa buni yara ahaa oo kuwa qoryahan xabadaha loogu talagalay dadkeena la dhacay dagaalada waxa qori dabadiisa ugu wada inantii intay diiday walwaashay iyo laba Eritrean laba gabdhood Eritrean intaaba xoog bay ku kufsadeen xoog bay u sheegteen oo gabdhaha qasab bay ku saaran jireen اوكي adiga marka gabadhaas way kufsadeen oo marxaatibaad ka qalan marxaatiba way kufsadeen maalinkii dambe reerkooga lacagta ka soo bixiyay maalinkii lacagta laga soo bixiyay caasimaday timaaday caasimada maalinkii timaaday ninkiiba Cabdalla soo qaraacay ku tirwariya wade umadan kugu fadeexadeynayaayo hadaan askar ku keen waxbay ku tirtiri oo duwayskaga ciilbaxaysa waa gabadh la ciilay soo maaha ka bacdi gabadhii uu hanjabo wuxuu dhahay hadaan dad taraabali ii joogo ii shaqeeya marka waxa uu shaqeeya xataa nin la dhaho ka tasho iyo nin Khaali Soomaali la dhaho ninka waa la waayay baduu raaco waa laga quustay baa la dhahay sigiyo naagtiisiibo labadaas ay u shaqeyn jiray wuxuu oran jiray labadaas aan kugu diraya rag baa ii joogo Trablus gurigaaga lagu iimanay inantii way soo raali galsay xogtu walaal marka horadii soo dhibaataysay imkana hay dhibaataynin waan ku nabad galiyo blog bay saartay واقف
kabacdi inantii say u joogtay stress baa ku dhuftay way waalatay markii ugu dambeysay waxaa la dhahay inantii way isku dhufato wadankii baa loo celiyay way waalat haa okay waxaa ii sheegtaa wiilka uu dilay sawirkiisa ma haysaa walaa sawirkiisa ma hayo walaahi waxay 2023 ahayd bishii 12aad bay ahayd haa xeradee buu ku dilay Khalid waxaa soo qabataa gabadha WhatsApp-kan kaaga soo diray waxay tiraahday taada kale walaal gabadha amar la dhahayaa rabtay in lay kufsado ninba ii bixisay habeen ay dhahaysay soo qabo birta nool oo ugu qoran okay haye idago fioritu idago waa gabadha kugu soo bedelaya idago walaal wuxuu sameeyay birta nool oo qabta gabadhaas sawir nin baa u saaran walaal maalin kasta xerada waa nagala riri jiray askar baa nagula cabsan jiray ugu dambeyn maalin waxaa dhacday intay waxa ka dhintay 2 nin oo Liibiyaan ah ka dhintay oo saxaraha gaari kaga dhacay kabacdi intay askartii nagala cabsadeen ba xabsi ayaaba askartiina hordajiyeen askartii markayna hordajiyeen habeennimadii horta ka horreysay intaanayna hordajin gabadh bay dileen oo intay waxa uu dhahay nin Eritrean iyadoo la hadlayso ayuu dhahay gabdhaheega Soomaalida waree anuunba ka shaqeyn kara waraadu seed uga shaqeysaa ku dhahay kabacdi ninkii way xifaaltameen labadii nin way xifaaltamay gabadhii uu ku arkay iyadoo la hadlayso wiilashii Soomaalida inta soo dhex fadhiistay uu soo u dilay taasna wallahi billahi tala tinteeda gacantan kaga xiiray tinteeda madaxeeda anaa ka xiiray baa ku dhahay maxamed madaxu ka dilay madaxa sida masku dadka madaxa ka dili jiray Cabdalla Soomaali waa gartay gabadha ma soo ii qaraacay ilkuhii dhaqaajin iyagu saddex waxay haay mid Maxamuud la dhihi mid Yaasir la dhaho iyo Cabdalle si ii dilaan labada ilkood bay dhaqaajiyeen madaxa si iiga qaraacayeen jirkayga wallahi billahi dad aragtaan de gabar baan ahayd ma tusi kar laakiin gacanta nabar baa igaga yaaleen ko si baabaaya madaxa jug biga gaarsay mararka qaar waa la dawaqaa wallahi billahi ninkaas ma aragtay walaal ilaahay naga qabto walaal dad awoodaan ninka meesha taagay ha lagu toogto soo qorqordhay gabadha